وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الله سبحانه وتعالى وحونا أمري نون الدردارمي أنك إيا أمده نقه ريي انتبا إن الله كعبسنه وان كأمر قادنه وان دينت الله سيدايتاي أقول لغنه. cabsida allah laga cabsadaa waa dardaarankii rabbi oo la siiyey awaliinta iyo aakhiriinta intaba. cabsida rabbi waa zaad meel la dhigto midda ugu khayrka badan. cabsida rabbi waa wax qofku ku noolaado waxa ugu khayrka badan. cabsida rabbi waa midda adduunka iyo aakhirada sharafta lagu yeesho. cabsida rabbi waa midda looga badbaado dhibka adduunyada iyo cadaabka aakhirada. cabsida rabbi waa midda dadka muslimiinta ahu ay sharafta ku yeeshaan cadowgana uga guulaystaan. cabsidu waa dardaaran qaali ah uusanna ka maarmayn qofka muslimkaa marnaba. axadka mu'minkaahu waxau ku noolaadaa cabsida. cabsidana asalkeedu waxau yahay waxa aad ka baqanaysid iyo adiga inta idiin dhaxayda inaad yeeshid derbi kaa ilaaliya waxaa. qofka muslimkaa waxaa laga doonayaa inuu rabbigii ka cabsado. carada alle waa inuu ka baqaa. ciqaabka alle waa inuu ka baqaa. wuxuuna uga baqanayaa inuu daacada rabbigii sameeyo. wax alla waxa macaasi ah oo rabbi ka caroonayana uu ka durgaa. axadka muslimkaahu ha ogaado taqwada rabbi laga cabsadaa mu'min iyo mu'minadu waxay adduunka qaataan waxa ugu wanaagsan weeye. bal allah waa nagu dhiiro geliyey oo wuxuu yidhi: watasawaduu fa inna khayra zaadi taqwa. zaad qaata. zaadka aad qaadanaysaanna waxa ugu khayr badan cabsida allah ee dadka cuquusha lahow rabbigiin ka cabsada. fattaquu llaha yaa ulil albaab. dadka cuquusha lahow allah ka cabsada. xoolaha la jamcinayo ha u arkinina liibaan iyo wanaag. liibaanta iyo wanaaggu waa cabsida allah laga cabsado. cabsida rabbi laga baqaa khayr la kaydsado waa waxa ugu wanaagga badan. axadka rabbigii ka cabsada alla agtiisa wuxuu ku leeyahay siyaado iyo darajo. axadka rabbigii ka cabsada alla agtiisa wuxuu ku leeyahay sharaf iyo wanaag. wuxuuna noqdaa mid loo gargaaro maanta dhib soo gaaro bacdamaa uu daacada rabbi ku dadaalo marka aysan dhibaatadu hayn iyo mar walbaba. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi: fadkuruunii adkurkum. daacadayda ku dadaala oo i xusa aniguna inaan idiin naxariisto oon idiin dhaafo dembiga ayaan idinku xusayahay. sidaas ayuu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala. muslimiintu waa inay rabbigood ka cabsadaan oo ay xaqa ilaaliyaan oo ay dembiga iyo waxa carada rabbi ku jirto oo dhan ay ka durgaan. arrinkaas hadday muslimiintu yeelaan adduunka iyo aakhiradaba guul bay gaarayaan. allah subxaanahu wa tacaala cabsida muslimiinta wou amray waana waajib. waayo allah wuxuu yidhi: yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allah
waltandur nafsun maa qadaman liqadin war dadka allah iyo aayaadkiisa iyo nebigaba rumeeyayow allah ka cabsada cabsidiisa xaqa ah qof walbaana ha eego waxa uu berrita geystay ayuu yidhi allah subxaanahu wa tacaala qof walba waxaa laga doonayaa inuu u fiirsado waxaa ka horreeya waxaa ka horreeya waa khatar haddaadan ka fiirsanna waxaad la kulmi doontaa silac iyo dhibaato allah subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu yidhi laa yastawii asxaabu aljannati asxaabu annaar war ma sinna dadka jannada iyo dadka naartu maxaa yeelay asxaabuuljanna waa dadka liibaanay oo dhibka ka badbaaday oo alle agtiisa sharafta iyo wanaagga ku yeeshay cabsida alle waa midda sabab u noqotay muslimiintu inay cadowga ka raayaan axadka rabbigii ka cabsadaa waa liibaanaa qofka rabbigii talada u dhiibtaa cadowgiisa ayuu ka raayaa qofka rasuulka ku dayda raxmada alle ayaa hareerayda qofka xaaraanta ka taga xawdka nebiga ayaa laga cabsiiyaa qofka xaqa ilaaliya inta dhibaysa ayuu alla ka qabtaa muslimiintow dadaala oo rabbigiin ka cabsada oo cabsidu inay shay weyn tahay u garta allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allah wa kunuu maca asaadiqiin war dadka allah iyo aayaadkiisa iyo nebigaba rumeeyayow rabbigiin ka cabsada oo waxaa rabbi idiin diray fuliya oo dadka iimaankooda iyo diintooda ku run sheegay micigooda ahaada oo diintu run ha idinka noqoto islaamkan afka laga sheeganayo dhaqankiisa lagu cayaarayo isaga taga sidaas ayuu allah yidhi subxaanahu wa tacaala dadku waa inay muttaqiin noqdaan oy rabbiga khalqay si dhaba uga cabsadaan haddaysan dadku sidaa yeelin dhibaato badan ayay gaari doonaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxau la hadlay nin saxaabi ah wuxuuna ku yidhi ittaqi illaha xaysu maa kunt meel alle meel aad joogtidba rabbigaa ka cabso oo macnaha waxaa loola jeedaa bad iyo biri haddii lagula joogo iyo haddaan lagula joogin si kastaba rabbiga ku khalqay ka cabso wixii rabbi kaa xarrimay ka tag wixii rabbi waajib kaaga dhigay la imaad wixii rabbi kuu diray yaan lagaa weynin wixii rabbi kaa reebana yaan lagugu arkin qofka muslimkaa taas ayaa laga doonayaa haddaan taa lagaa helin waxba kuu hagaagi maayaan ittaqi illaah xaysu maa kunt waa xaqa rabbi kugu leeyahay gudo xuquuqda ou allah leeyahay subxaanahu wa tacaala waxuu rasuulku u daba dhigay sala allahu calayhi wasalam waatbaci sayi'ata alxasanata tamxuhaa wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasan wuxuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xumaanu markay kaa dhacdo wanaag raacsii dadkana waxaad kula dhaqantaa akhlaaq iyo dabci hagaagsan oo allah raalli ka yahay subxaanahu wa tacaala macnaheeda waxaa loola jeedaa xaqa rabbi kugu leeyahay la imaad xaqa nafsadaadu kugu leedahay la imaad xaqa addoommada alle kugu leeyihiin la imaad diintaas ilaah sida ay tahay u ilaali kitaabkaa rabbi marnaba ha ku cayaarin oo taqwada qof u munaasiba noqo ehelkeeda ah xadiidkaa tirmidi ayaa sanad wanaagsan ku qoray rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu dadka u sheegay inay cabsida rabbi ku dadaalaan kolkay keligood yihiin iyo kolka lala joodo labadaba aad buu arrinkaa nabigu ugala hadlay dadka sala allahu calayhi wasalam cabsida laguu sheegayaa waa wasiyo cadiimo ah oo jamcinaysa taqwadu xuquuqda ou rabbi kugu leeyahay iyo xuquuqda addoommada alle kugu leeyihiin xaqa ou alle kugu leeyahay waa inaad allah ka cabsatid cabsidiisa xaqa ah oo aad xustid dikrigiisa la timaadid oodan marnaba iloobin oo aad ku shukridid oodan marnaba ku kufrin oo aad addeecdid oodan marnaba caasin oo aad waqti walba cadamadiisa iyo awooddiisa xasuusan tahay taasaa lagaa doonaya taqwadu waa zaad aan la huri karaynin qofka muslimkaa waa inuu ka baqdaa rabbi caradiisa ciqaabkiisa waa inuu rabbi ka baqdaa inuu silciyow dhibaato ku keeno axadka muslimkaa
carada alle waa inuu ka digtoonaadaa siduu allah u yidhi wayuxadirukum allahu nafsah subxaanahu wa tacaala rabbi wuxuu idinkaga digayaa naftiisa ciqaab inuu idin keena inta khilaaftaan ood caasidaan arrinkaa qofka muslimkaa waa inuu iska ilaaliyaa war allaha laga boqo subxaanahu wa tacaala war qofka isku dayay daacada rabbi inuu ku cayaaro meel adag baa la gaarsiinaya taqwada mar waxau alla u adeefiyey in laga boqdo cadaabka oo alla wuxuu yidhi waataquu nnaara alatii uciddat lilkaafiriin war waxaad ka cabsataan naar oo dadka loo diyaariyey gaalada iska ilaaliya naarta ayada ah wuxuu kaloo alla yidhi isagoo taqwada maalin u adeefinaya waataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah waxaad ka cabsataan maalin adinka oo dhan xagga rabbi laydiin celinayo subxaanahu wa tacaala allah laydin horgeynaya haye ka cabsada maalinta noocaasa waataquu yowman laa tajzii nafsun can nafsin shay-a waxaad ka baqataan maalin aan nafu naf kale waxba u qaban karin waxna aysan ka badbaadin karin waxna aysan ku tari karin madax furashana aan lagaa qaadanaynin maalinta noocaasa ka cabsada oo waxaad uga cabsataan maalintaa waxaa lagu guulaysanaya la imaada oo qofka muslimka waajibaadka samay muxaramaadka iyo waxaa shubhadu ku jirta ka tag sunnada samay oo ku dadaal waxyaalaha karaahiyadaana isaga durug oo rabbigaa ka baq subxaanahu wa tacaala dadka muslimiintaah waa inay taqwada ku dadaalaan war taqwadii laga doonayay dadka islaamka in badan oo ka mida maanta laguma hayo ee axadka muslimkaa rabbigaa ka cabso miyaadan ogayn inaad dhima doontid adigoo keligaa alle lagu hor keenayo rabbi ka cabso subxaanahu wa tacaala rasuulku waxau yidhi uusiika bitaqwa allah fa innahaa ra'su lamri kullah waxaan kuu dardaarmayaa cabsida allah amarka oo dhan ayadaa u madax ah waa xadiis dheer qayb ka mida oo soo saaray ibnu xibbaan iyo kayrkiis cabsida alle shay walboo khayray madax u tahay cabsida alle wax walba oo wanaaga ayaa lagu gaadhaa cabsida alle shay kastooo qofku doonayo oo wanaaga ayuu ku hantiyaa macsiyada iyo dembiga xumaan oo dhan bay sabab u noqdaan cidhiiri oo dhan waxaa lagu gaadhaa cibaada xumo ciqaab oo dhan waxaa lagu hantiyaa caqiida xumo iyo cilmi la'aan ee rabbi ka baqday subxaanahu wa tacaala qofka ribada cunayo miyaadan ka cabsanayn raxmadda alle in laguu diido qofka xaqa ku cayaarayo miyaadan ka cabsanayn xariiqa naarta in lagu cabsiiyo qofka kibirka iyo kelmadaha xun ku jiro miyaadan ka baqanayn rabbiga kariimkaa saacad walba waxaad ku kurbootay inuu kugu rido war alla ka cabsada war diinta alla ilaaliya war khayraadka u degdega muslimiintow khayraadka u degdega oo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu idiin dilayaan laydinka weynin axadka muslimka u saki noqo oo deegsinimada iyo waxbixinta ku dadaal axadka muslimka u xalaal miirashada ku dadaal kolkaad kaligaa tahay axadka muslimka u kelimada xaqaa ku dhawaaq axadka aad wax ka rijaynayso iyo kaad ka baqanayso markaa intaba la joogtid meel kastaba weligaa ku dadaal inaad xaqa ku dhawaaqdid taasaa lagaa doonayaa xaqa qofna marna ha uga haybaysanin qofka muslimkaa taas ayaa laga dooni rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxau sheegay qofka rabbigii ka cabsada oo salaadaha shantaa ilaaliya oo ramadaanka sooma oo wanaagga sidaa ugu dadaalaa inuu jannada alle nabadgelyo ku gelayo ee qofka doonayaa inuu jannada rabbi nabadgelyo ku galaa rabbi diintiisa ha ku dhaqmo waxa rabbi ka xarimayo ha ka fogaado qofka laakiin aan rabbi inuu la kulmayo ogayn waa dulloobi doonaa axadka macsiyada korayow sow ma ogid alla inuu ku eegayo sow ma ogid alla inuu micigaaga yahay sow ma ogid kuwa wax qora oon waxba halmaamin inay garbaha kaa saaran yihiin rabbigaa ka baq subxaanahu wa tacaala waxaa rasuulka ducadiisa ka mid yahay sala allahu calayh wasalam as'aluka khashyataka fi alqaybi waashahaada rabbiyow cabsidaadaan ku su'aalanayaa kolka aan lay arkayn oon dad ila joogin iyo kolka lay arkayo waxyaalaha cadaabka alle looga korana waxaa ka mid ah khashyatullaahi fi alqaybi waashahaada rabbi oo laga boqo kolka aan lagu arkayn iyo kolka lagu arkaya intaba
rabbi oo laga boqo waa waxyaalaha lagu nabad galo oo cadaabka looga koro wattaqullah ina allaha kaana calaykum raqiiba rabbi ka cabsada oo ogaada allah inuu dushiina ilaaliyo ku yahay axad walbow rabbi baa ku waardiyeynaya rabbi baa ku arkaya subxaanahu wa tacaala allana wuxuu odhanayaa qul in tukfuu maa fii suduurikum aw tubduuh yaclamhu allah waxaa qulubtiinna ku jira haddaad muujisaan iyo haddaad qarisaan intaba rabbi waa ku cilmi leeyahay waana uu arkayaa subxaanahu wa tacaala ay allah intaasoo dhan waa u jeedaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam khudbadii ou akhriyey yowma annaxri waxau dadka u dardaarmay cabsi allah waxauna ku yidhi uusiikum bitaqwa allah waxaan idiin dardaarmayaa cabsida rabbi inaad ismaqashaan inaad is-adeecdaan inaad amarka alla qaadataan inaad diinta sida ay tahay ugu socotaan ayaan idiin dardaarmin buu yidhi salafkii kama suulin inay cabsida alle isu dardaarmayaan abuubakar oo cabsida alle u dardaarmaya dadka wuxuu ku yidhi uusiikum bitaqwa allah waxaan idiin dardaarmayaa cabsida alle iyo inaad rabbi ku ammaantaan waxa uu ahal u yahay iyo inaad isku dartaan inaad allana ka baqataan khayrna ka rijaydaan su-aasha aad alla baryaysaanna ku celceliya buu yidhi taasaa qofka muslimkaa laga doonayaa waayo allah waxuu ammaanay dadka khayrkale markuu ka hadlayey innahum kaanuu yusaaricuuna fi alkhayraat wayadcuunanaa ragaban wa rahaba wa kaanuu lanaa khaashiciin waxay ahaadeen kuwo khayraadka u degdega oo rabbigood barya caabudana ayagoo khayrna ka rijaynaya kana cabsanaya qofka muslimkaa waa inuu daacada rabbi ku dadaala waa inuu baryaha alla badiyaa isagoo allah khayr ka rijaynaya cadaabkiisana ka baqanaya taasi waa lagama maarmaan cumar binu khadaab waxaa lagu yidhi oo ku yidhi abuubakar ittaqi illaaha yaa cumarow rabbigaa ka cabso cumarna wiilkiisa wuxuu ku yidhi marka u dardaarmayey waxaan kuu dardaarmayaa cabsida allah qofka ka baqa wou dhowraa rabbi qofka amahsada wou amaal mariyaa rabbi qofka ku sugriya waa u siyaadiyaa wax kasta oo wanaaga waxaa lagu gaaraa u shaqaynta diinta allah iyo cabsida alle inay qalbiga kaaga jirto indhahaagana hor taagan tahay diinta say tahana aad ugu soconaysid ee rabbigaa ka boqo wanaagga ku dadaala sidaas ayuu ku yidhi qofka muslimkaa waa inuu rabbigii ka baqdaa wanaaggana sidaa ugu dadaala soo u guulaysta adduunka iyo aakhirada intaba axad walbow rabbigaa ka cabso waa allaha lankulankiisu ou lagama maarmaanka yahay cabsida allah khayrka adduunyada iyo tan aakhiradaa lagu hantaa axad walbow cabsida alle ku dadaal cabsida alle waxaan ahayn lama aqbalo ehelkeeda waxaan ahayn looma naxariisto waxaan ayada ahayn dadka lagama sawaabiyo inta wax ku wacyidaa waa badan tahay inta ku camal fashaana waa ay yar tahay ee axad walbow muttaqiinta ka mid noqo haddaad doonaysid meel walba inaad rabbi wanaag ka gaartid subxaana wa tacaala waxaa rasuulka ducadiisa ka mid ee saxiixa ah allaahuma innii as'aluka alhudaa waaltuqaa waalcafaafa waalqina allah iyo waxaan ku su'aalanayaa hanuun iyo xaqa inaan ku sugnaado waxaan ku su'aalanayaa cabsi iyo inaan xumaanta ka dhowrsanaado iyo in qalbigayga hodantinimo aad gelisid axadka muslimkaahow rabbiga uga sarriigo sida aad makhluuqa uga sarriiganayso si ka badan rabbiga ayaa ku daalacanaya rabbiga ayaa wakhti walba kuu jeeda ee awaamirtiisa fuli dembiga ha la dhuumanin xumaanta ha u degdegin xaqana ha ku cayaarin ee kitaabka alle siduu yahay ugu soco qofka muslimkaa waa inuu ogaadaa wax la sirriyeysto waxa ugu khayr badan cabsida alle wax la muujisto waxa ugu khayr badan cabsida alle wax la kaydsado waxa ugu khayr badan cabsida alle wax labis laga dhigto waxa ugu khayr badan cabsida alle wax waktigaaga lagu bixiyo waxa ugu khayr badan cabsida alle ku bixi waktigaaga oo dhan cabsida alle maxaa yeele cabsida alle jannaa lagu galaa wanaag oo dhan baana lagu gaarayaa qofka muslimkaa marka waa inuu si dhaba ugu dadaalaa allahna ka baqaa subxaana wa tacaala dadka rabbigood ka cabsadaa waa awliyada allah waa kuwa loogu bishaareeyo inay liibaanayaan marka ay dhimanayaan agteeda loo bishaareeyaa
وكوا لغا كوري عذابك الله سيدو الله يري ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ورددوا أولياء الله دشوا عبسي إيا تيرانيو إيا الدب مدنبا أهانين ييه الذين آمنوا وكانوا يتقون وكوا الله رميي آيات كيسر رميي رسول كرميي ووحى ربي أدري سيدو أقدري أفلي ووحى ربي كرهي سيدو أغرهي أغتغي والرسولك سيدا أو يالي يالو كدايداي وحكستو رسولك ديدانا إساقتغي الله وحوي لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ذاتك تلمامها إسكاله وإيمانك حقيقة إيا عبسيدا اللي لغا هلي إيا كدايسادا رسولك صلى الله عليه وسلم وحا أسوغا نرش الدنيا بشارو إيا وحي كفرحان آخرنا وحا أسوغا رداء الله فردوسا مال هجاجسان إيا حوضك النبي قول لغا عبو صلوات الله والسلام عليه الدنك يا آخرنا بالليبان بيقعنتك هيا الدنك يا آخرنا بيدتك قوليستوي وحا أي كب قوليستان وامحة وإيمان وعبس ربي وهي الله بايري يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وردتك الله أي آيات كيسا إيا نبي قبل رمييو ربك إذن خلقي كعب صدا وحاك ألا كجارتان ودرديه سكسبتان ضلبة وإيماني عمل صالحة دريق ربك كدق علما ودينك كدقما وددك أبويرا وددك إذن كسو قارا الدلقات الدونك يا آخرة لبضب والليباني ثاني مركز سوى تقولي سنيتان مركز دينتا ألا ساقو شغيلان ودينتا ألا ددو أليقان نقوتان ووحا الله إذن كحرمي آد كتكتان ووحا الله إذن كبو يري آد فلدان ورهاقات سنادة ورهاقات كد دار مسلمين تو والمسلمين تو ساتن وسيم معهن والدينتا ألا هلا بصعبه وعبسida alla jaada laga dhigto dadka rabbigood ka cabsada waa ay liibaanayaan waxay ku liibaanayaan rabbi qofka ka baqa waa qof ballantii alla oofiyay ahadkii ballantii alla oofiyan alla ballantiisa uu oofinaya oofu bi'ahdikum wa iya yafarhabun ba dabataala oo ballantii alla la oofinaya macnaheeda waxa loola jeeda in rabbi laga cabsado marka allah wuxuu cadeeyay qofka ballantiisa oofiya oo wuxuu u diray fuliya wuxuu ka reebana ka taga inuu tiisa u oofinayo oo ah inuu adduunka u gargaaro aakhirana oo jannaysiyo waxa gaaraysa taa weeye waxa lagu liibaana wax ugu qiimaha badan waa qadiyada noocaas marka allah laga boqo subhanahu wa ta'ala diintan yaa lagu cayaarin qofka muslimka waxa fududaysan dambiga hana isku dayin rabbiga ku khalqa inaad caasidid war allah qofka caasiya dib weyn buu la kulmi doonaa eeyaan allah la caasinin yaan la yaraysanin xaaraantu midqaalu darra hadday tahay waa laga amal marin xalaashu hadday wax yar tahay oo lagu aqbalo waxa wanaagsan jannaad ku geli ahadkii in yaro camal loo aqbalaa jannaad ku gelaya qof walbaana waa inuu ogaadaa shaqo kastoo qabtay ha yaraata ha sabanaatay waa amal marinteeda waa la tusin waayo allah baa yidhi faman yacmal midqaala darratin khayran yara wax yar oo khayr ah qofka sameeyey yow iska xaqirin waa la kulmi doonaa waman yacmal midqaala darratin sharan yara in yar oo sharta ka midana ha xaqirin oo inta xaqirta ha ku dhicin lagugu cadaabi doontidaa ma ogide iska ilaali arrinta aayaddaas ayada ah waa aayad qur'aanka ka mida midda ugu jamcinta badan cajaa'ib bay leedahay waxay kulmisay wax kasta oo khayr ah iyo shar oo dhan waxaa halkan ku yaalla aayad aad u cabsi badan oo allah yidhi man yacmal suu'an yujza bih laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab man yacmal suu'an yujza bih ma ahan arrinta xaqiiqada oo aakhiro jirtaa iyo say xaaladdu tahay waxaad adinku weydiisanaysaan waxay adinka idinla tahay iyo waxay ahlu kitaab la tahay ee waxaa la idiin sheegayaa in yar oo xumaan ah oo caqiida xumo ah oo akhlaaq xumo ah oo cibaado xumo ah oo xaaraan cunid ah oo xaqdarro ah qofka ku dhaqaaqa waa laga amaalmarinaya amaalmarinta wou gaarin
الله وحكا سكي أو أجرجار يو وحقبنا يا نملحن لما هليو يعني للسجن مصوص عران أيها الله سبحانه وتعالى marka waa aayad aad u naxdin badan qofka doonaya inuu Allah khayr ka rijeeyo ilaahay naxariistiisa waa waasic waayo Allah wuxuu yiri qul ya cibaadiy alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jamii'a nabiyo waxaad ku tira adoomadayda kuwa xad gudbay oo xumaan oo dhan ku tarax tagay naxariistayda ha ka quusanina ذنوبته أو دن الله نافه أو وديسو أي لا أكتاي وحكست إنه سامحان أهي هاي قرتين أنا إيسو اللهتين وهو البانك سامحيان وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له حق ربي الله والله السليبة إنت عذابكم كذين كويما وعبسد على كتلها نحريس على ساسي واسع أطهر إلى هنساس أود ولا وحكست إنه كأمال مريض وكو عذابه وحول بينه كو سامحنا وكرا يو وحكست الله أسامحه قفك غلط كيسا اعترافه ودين تعالى أصول لابته ودلقوا قعنتك كهي كتغا يعني وحكست اللي وعلابه قفك غلط كيسا اسكولتي عنه ربي كعب سمرك ليرا ماذا حسرق تاغا حق أكاري حارانتنا كتك مرك ليرا ماذا حسابه يؤمد أقول جوابه ويو الله وحوي وإذا قيل له اتق الله أخذه العزة بالإثم فحسبه جهنم أحد كخير كدرا ومنافقا وقفك مركا لقويا ربك كعبته جنبك أو كجر سببك أنا فق سلوينا أو خفته عزة سيبه سلانا قنا يا سيالغو ليه كرا ربي وحويري استقاء آمسة جهنم قفلان قبل الجيب سبو إيا ميل أيضا آيانا جهنم باطله مالك اللي بدنا كحنون أحد كان هلك آيوس إنه نقدان أن دونينه ربك كعبته وإن مركز تأغاك الله إنه كادونا التوحيد إنه كادونا وناد إنه كادونا عدالة إنه كادونا فحشك إنه كتكتب وأي الله وحويري إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون دينتي واحد كلمة مجران إله وحو إذن أمر يا توحيد إله وحو إذن أمر يا عدالة توحيد كمرك اللي قوله يا عدالة وإسو إيمان دونان محايا للتوحيد كوا إن رب الله وحيده شيء والبنا سيده ويالكو يري الله يالو عدالة دونوا سيده شيء والبنا سيده كويري قد قنقلي لو قنقلي وحو الله إذن أمر يا إحسان والله قوض عملك اللي إذين دير إنا السكتان إلى هذا إنا الوناجسان اللي درت إنا الأصميلان وهذا كتاب يسونا ذا وفجدا وهو الله إذا أمر يا حريرين مسلمين تأردن إيا إهلكين وهو الله إذا أمر يا وناجنت مخلوق الله دن لوناجيه وناج قودنا وحاكم إذا حقا إن الله شيء وهو الله إذن كريبا يا فحشك وحكست حمان وجرك وحدبا وحولها وحدبا وإله كعرونيو إيا وحكست دنبئ وعقوبك أقرت من كريسو قردرسك حدقلبك حمانتا إسلوينك حقرد مسلمينك كل قد كتغا هدي أساس ياشان إنا دوان سنتان باليين كريجين وتربيين كعبستان وضل خير لنا غطان انت سوينا إذا مركز بريدان محايدين دمين دونا وسيق الذين اتقوا يعني والله كحينا يادتك ربي وكعبد سيق الذين اتقوا ربهم إلى جنة الزمراء كو ربي قولا كعبد حق الجنة الله كحين أيقو جميعوين أما المرين تاذو مركز قدام بيدا ساسين نقون بعدما عاد انت الله ود ريت لي انت لغا ريبانا عاد كتغتي قف والبو ددال انت حياتك لغا قادين maalinta qiyaamada dadka banaan baa la isugu keenay awil Mucaad bin Jabal ahad naadiye ayaa naadin waxaana la oranayaa ayna almuttaqiin aawa kuwii rabbiga ka cabsaday aawa kuwii wixii rabbi u diray fuliyay aawa kuwii wixii rabbi ka xarimay ka tagay oo aan adduunka xaaraan qoodan oo aan adduunka muslimiinta dhigin oo aan adduunka macasiyo dambi ku soo noolayn oo haddii qalad ka dhacay degdeg hooy uga tooba keen aaway waa istaagayaan allaha raxmaanka meel uu ugu talagalay ayay tagayaan
marka waxaa laga doonayaa qof walba oo muslim ah inuu rabbigii ka cabsado iskana ilaaliyo wax kasta oo carada alle u keenaya. cabsida alle waa shay muhim ah ee muslimiinta u dadaala. waxaa lagu yidhi Mucaad binu Jabal muttaqiin yaa la yidhaah, waxau yidhi waa qawmun ittaqu shirka wa cibaadatu alawthaan, waa qoom shirkiga ka cabsaday iyo caabuditaanka asnaamta. wa akhlasuu lilaahi alcibaada, waa qoon cibaadada alla u saafi gareeyey oo xagga jannada u soconaya. qoon noocaasa weeye. rabbi waxaa dhab uga cabsaday dariiqa alle qofka dhab ugu jihaaday, qof dagaal badan dagaalkiisa aan diinta uga tegin, cadaaladda ku dadaalay naftiisa iyo aabbayaalkii iyo ilmihiisaba ha ahaadeene. mar kastaba qofka noocaasaa dadka ugu khayr badan. marka muslimiintu ha dadaaleen, rabbina ha laga boqo subxaanahu wa tacaala. war xaqa qofkaan ilaalin waa loo cabsadaa, ee dadka muslimiinta rabbigiin ka cabsada. wax kastoo alla idinka durjinaya ka durga, wax kastoo alle idiin dhowaynaya ku dadaala, daacada alle la imaada adinkoo cilmi ku sugan, rabbina sawaab ka rijaynaya. waxa rabbi xarrimay ka taga adinkoo cilmi ku sugan, ciqaab allana ka baqanaya. wixii rabbi waajib idinkaga dhigay la imaada muslimiintow, xaaraanta iyo xumaantana ka taga. saas ayaa cabsi alle la yidhaahay. qofka taqigaa shirkiga waa ka dhowrsadaa, munaafiqnimadana beri ayuu ka yahay waana iska ilaaliyaa. dadka muttaqiintaa waxaa lagu yaqaan iimaan saxiixa, cibaado wanaagsan iyo inay muslimiinta wanaajiyaan. ee rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala. war dadka muttaqiintaa waxaa loo hayaa bishaarooyin waaweyn oo cajiib badan. bishaarooyin aan la soo koobi karin oo qur-aanku ugu bishaareeyey baa muttaqiinta loo hayaa. qur'aankaa u bishaaraynaya. qur'aanku waxau u bishaaraynayaa dadka rabbigood ka cabsanaya. waxaa loogu bishaareeyey muttaqiinta marka ugu horraysa dadka qur'aanka ku intifaaca oo waxaa dhexdiisa ku sugan qaataa waa muttaqiinta. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi daalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin. kitaabkaa asaga ah wax shaki la yidhaah kuma sugna inuu xaq yahay, xagga rabbi ka ahaaday, waxaana dhexdiisa ahaaday hanuun wuxuu u yahay cabsadayaalka alle dadka la yidhaah. cabsadayaalka alle dadka la yidhaah oo rabbigood ka cabsaday oo diinta ilaaliyey, qur'aanku hanuun buu u yahay. ee hanuunka dhigta oo ku dhaqma oo rabbigiin ka cabsada subxaanahu wa tacaala. bishaarada labaad oo muttaqiinta loo hayaa waxa weeye inay makaano sare alle agtiisa ku leeyihiin maalinta qiyaamada. wuxuu allah yidhi subxaanahu wa tacaala zuyina liladiina kafaruu alxayaatu addunya wayaskharuuna min aladiina aamanuu waaladiina attaqow fawqahum yowma alqiyaama. gaalada in adduunka loo qurxiyey oy muslimiinta ku jeesjeesayaan oo alla noo sheegay. waxuu alla nagu yidhi oo ugu bishaareeyey muttaqiinta makhluuqa dhan dushooda ayay ahaanayaan dadka alla ka cabsaday maalinta qiyaamada. makaanatu alculyaa, makaano sare, derajo sare oo qiimo badan bay rabbi agtiisa ku leeyihiin cabsadayaalka alle dadka la yidhaahdo. ee rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala. dadka cabsadayaalka alle la yidhaah waxaa kaloo loogu bishaaraynayaa inay leeyihiin jannaad hoostooda ay webiyaal durdurayaan iyo haween nadiif ah iyo rabbi inuu raalli ka noqonayo. waxau allah yidhi liladiina attaqow cinda rabbihim, dadka rabbigood ka cabsaday waxay alle agtiisa ku leeyihiin jannaatun tajrii min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha wa aswaajun mudahara wa ridwaanu min allah. jannaad iyo beero hoostooda ay webiyaal durdurayaan oo ay ku waarayaan iyo haween laga dahiray qurun oo dhan, inay xaydaan, inay dhibaatoobaan, inay dhalaan, wax kasta oo wax lagu qurumaysanayaa laga dahiray, inay gaboobaan, inay isbeddelaan, wax walba iyo raadi ahaansha xagga allah ka ahaatay. yaa iska leh cabsadayaalka alle dadka la yidhaah. waxaa aayadda awalkeeda alla ku yidhi qul aw unabbi'ukum bikhayrin min daalikum liladiina attaqow cinda rabbihim jannaatun
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله cabsadayaalka alle waxaas ayaa u sugan oo wanaag ah dadka rabbigood ka cabsaday waxay gaarayaan oo kaloo loogu bishaareeyey rabbi inuu jeclaado subxaanahu wa tacaala rabbi inuu jeclaado waatuu allah yidhi subxaanahu wa tacaala balaa man awfaa bicahdii wattaqa fa ina allaha yuxibu almuttaqiin wuxuu allah jecel yahay wanaag oo dhanna ku amaalmarinayaa dadka asaga ka cabsaday oo muttaqiinta la yidhaah rabbi waa jecel yahay axadka allah ballankiisa oofiya oo rabbi ka cabsada axadkaasu alla jecel dadka muttaqiinta allaha wuxuu yidhi fama staqaamuu lakum fastaqiimuu lahum ina allaha yuxibu almuttaqiin intay idiin toosan yihiin oy ballankii ku toosan yihiin gaaladu u toosnaada ayugana intay adinka ballantii idinkugu toosan yihiin gaaladu ugu toosnaada ilaahna wuxuu jecel yahay wanaag ku amaal mariyaa firdowse iyo meel habboon seexiyaa dadka rabbi ka cabsaday cabsadayaalka alle dadka la yidhaah oo wanaagga ku dadaalay oo diinta ku dhaqmay allah jecel wax kastoo wanaagana ku amaal marinaya subxaanahu wa tacaala marka muslimiinta u dadaala oo rabbigiin ka cabsada oo yaan diinta alla lagu cayaarin waryaan xaqa la layicin war dadka xaqa la yacaa musiibo adag bay la kulmayaan ee rabbi ha laga bogo subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo loogu bishaaraynayaa dadka rabbigood ka cabsada inuu allaha micigooda yahay nasri iyo gargaar ou la yahay waa loogu bishaaray rabbigaa micigooda nasri iyo gargaar oo allah yidhi wattaqu llah waclamuu ana allaha maca almuttaqiin war allah ka cabsada oo amarkiisa qaata oo ogaada allah cabsadayaalka inuu micigooda yahay cabsadayaalka ayuu allah micigooda yahay allah wuxuu aayad kale ku yidhi ina allaha maca aladiina ataqow waaladiina hum muxsinuun wuxuu allah kaalmo iyo gargaar micigooda la yahay dadka allah ka cabsaday oo wixii rabbi u diray wanaajiyey oo wixii rabbi ka reebay ka tegey oo allah u caabuday sidii ayagoo arkayoo kale waayo haddaysan allah arkayn alle asagaa ayagoo arkaya sidii ayagoo allah arkaya bay allah u caabudeen haddaysan allah ayagu arkayn alle isagaa ayagoo arkaya si kasta u daalcanaya subxaanahu wa tacaala qofka muslimkaa waa inuu arrintaa gartaa ou rabbigii si dhaba uga baqaa waxaa kaloo loogu bishaaraynayaa dadka allah ka cabsada liibaan iyo najaax oo dhan allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala faataquu allaha yaa uli lalbaab lacallakum tuflixuun allah ka cabsada dadka caqliga lahow rabbi haddaad ka cabsataan waxaad xaqiiqa ku tihiin inaad liibaanaysaan adduunka aakhirada labadaba waad liibaanaysaan waad guulaysanaysaan waxyaalo badan buu alla idin gaarsiinayaa ee allah ka cabsada allah amarkiisa qaata diinta allah ku socda allah subxaanahu wa tacaala sidaas buu yidhi dadka rabbigood ka cabsadaa waxaa u sugan oo loogu bishaaraynayaa cabsida argagaxa in qalbigooda laga saaro in loogu bishaareeyo adduunka iyo aakhirada liibaan allah wuxuu yidhi faman ittaqaa wa aslaxa falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun dulkii allah ka cabsada oo caqiidadooda iyo camalkooda iyo akhlaaqdooda wanaajiya dushooda cabsiyo ma ahan kuwa tiiraanyooda ma ahan kuwa dhibaatooba ma ahan wax ay kahlaan waa laga dhowrayaa alla hortiisa markay tagaan subxaanahu wa tacaala iyo mar walbaba bishaaro ayaa u sugan adduunka iyo aakhirada labadaba bishaaro ayay iska leeyihiin dadka muttaqiintaa qof walboo muslimow taqwada alle ku dadaal cabsida alle aday saad kuu noqon oy ku anficin ee rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala war cabsida allah axad ka hantiyaa wax u dhiman oo wanaaga ma jiraan eeddadow cabsida allah ku dadaala oo rabbigiin ka cabsada waxay dadku sheegayaan maal bay sheeganayaan war maal waxaa kuugu khayr badan aad faa'iidaysatid cabsida allah faa'iidada iyo maalka inta aad leedahay waxaa kaaga khayr badan cabsida allah
قفك وح أو فائديس وح أقوى بدن عبسد الله عبسد الله ومدة جنة لقو قريو ومدة الليبان تودن لقو قاريو ذات قاطة وعبسد على الراشين كدكتا ما أوجد حضر همين نملك جارتد إلى وبريق إن النولاد دونت إمي صدر أيات جري وعافمات قبا أو جيريولي إنير أو حنون أيضو سنقبان إمي سجرنيد أيات سندبلا نولاتي إمي صدر لن يرى أيات رجيني سي عمرك إن لوت ديريو سيدك دقنا قبرك لقو قارسيي إمي سقفود أيات عروس إسو دياريي أو أقل الله شرحي habeenkii ugu horreeyday oy aqalka tageenna qabri hore loogu qaaday imise dhallinyaraa ayaa galabaysatay ayagoo qoslaya waaguna u baryey ayadoo qabri loo sii wado imise yacnii isku hallaynaysay inay adduunka jaga ka qabtaan baa markay adduunka ka qaateen shahaadada ugu sarrayda shilin ayagoon ku cunin qabri loo sii qaaday أحد والبو تقوى ألا لازم تقوى ألا لازم إدى اللازمة لقول لي بانا قفك تقيقا وقفك مخلوق أقو عقل بدن دا على ألا اللئمات ردها ألا أدقارتي دي ربك أدع أد أدواتي دي ربك كأمر قالوا أد الليبانتي دي وقت والبابي عبسيد الله ومدة وحوال بلغو قاريو ذاتك ربي قوت كعب صدا وحالوغو بشارين يا إن لو فريو بركات إن إرك إيا دلك برواقا لغا سينيو سيدو الله أيه سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون الله سبحانه وتعالى وحويري dad qaryooyin degan ahlul qura hadday la imaan lahaayeen iimaan xaqiiqi ah oo ay allah si dhaba u rumayn lahaayeen oo ay aayaadka alla rumayn lahaayeen kuwa kowniga iyo kuwa la soo dejiyey intaba oo ay rasuulka dhab u aamini lahaayeen kuna dayan lahaayeen rabbiga khalqana ay ka cabsan lahaayeen waxaa loo furi lahaa cirka iyo dhulka barakaad barwaaqo meel walba iyo khayr walaakin been bay la yimideen diintii bay beeniyeen aayaadka allay ka tageen iimaankay sheeganayaan bay ka been sheegeen dacmi aan wax ka jira la arag rabbi wuxuu yidhi xumaanta ay kasbadeen sababteed ayaan cadaab adag oo xun ku qabanay dadka noocaasa cadaab aysan xamili karin ayaa lagu qabtay waxaa cadaabka luqunta loogu geliye waa maxay waa siday u layaceen diinta allah waa siday ugu cayaareen kitaabka allah hameen ayagoo hurdayaa musiibe lagu salliday ama maalin ayagoo barqanayaa la tirtiray labadaba alla waa yeelaa subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo loogu bishaaraynayaa qofka rabbigii ka cabsada in xaqa iyo baadilka loo kala saarayo oo loo kala bayaaninayo oo waxau ka baqanayo derbi ka xisba yani laga xijinayo allah subxaanahu wa tacaala waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ذاتك الله إيا آيات كيسا إيا النبي قبر مييو ربك إذن خلقي هدات كعب ستان الله وحو إذن يا فرقان حق إيا بادلكو إذن كلا ساري وحا أتكبغان إيسان إيا إذن كإنت أنح إلى الدرب اللي آدم قالوا إذن كلا ساري وانا قال لقوم موجنين dunuubtiinna mid yar iyo mid weyn alla waa idiin dhaafaya fadli weyn oo cadiima alla kii u maaliga weeyo isagu hantay wax walbana alla isagaa bixiya laakiin alla iyo wax walba siiya oo wanaaga dadka isaga ka cabsaday axad walbow taqi noqo aad taba yeelatide axad walbow taqi noqo aad taajir noqotide axad walbow taqi noqo tawfiiqda ha lagu waafajiye أحد والبو تقي النغو توبتها لقو قدلي أحد والبو تقي النغو ملها جاكسنسي أو الله كوغي سبحانه وتعالى وريان تقوذا لقى تقين
وريان تلدا ليسغا عيارين أحد كأن تقي النقن تلدي سوا كو عياري لمن طبعا تابي الدونو بل سوا الله سلعنا ميل أو سنقالي كرينا ولا جيتين ذاتك ربي قوة كعب صدا وحاك الله بشارين ولاية إلالين إلهي ربي بقى ولي النقنية ويا الله وحوي وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين ظالمين تا قبل كود قبل ككلو إلالية ويهي بقتك اسكو إلاليانو بلايا إسفرانو دي اللي أنت إسودر دارمان متقين تا وحا ولي قودة إلاليه هودا قرقاله هودا والله نعم المولى ونعم النصير قرقاله الله وقل نعمله سبحانه وتعالى إيه مثل هذا اللي ديبه أي مولاه النواء الله كمؤمنين تا وحا إلاليه الله عبس بيالك علي ذاتك اللي يرى وحا إلاليه oo wax kasta ka xifdiya oo waxay doonayaan u sameeya waa dadka Allah yaani Allah subhanahu wa ta'ala ayaa wanaaga gaarsiinay waxa kale loogu bishaareeyay dadka rabbigood ka cabsada in harta laga korinayo wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maghdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya ربي مركو كدارتي او دشيسا ساري مخلوق قدن الى جهنم دول مليان وحو الله يري متقين توان كورينينا وان بدبادينينا بأسا كنارتا وان كدورينا ذاتك وجهودا كسعودا كيالين مينو مجرمين تنبتودا الشركي دين لأنت حرام عنده حقلا ديريركا مسلمين دي بدا كذل ميت جهنبان اوغتاقينا ايا ميالدران جلبوها قلابان وجهو افورارا ayagoo silacsan saqara iyo meel daranna u sii socda xaaladdu waa sidaa marka dadka rabbigood ka cabsaday sidaasay alle agtiisa liibaan mar hore iyo mar dambe intaba ugu leeyihin ee allaha laga cabsado subxaanahu wa tacaala war cabsidu waa bishaaro weyn war cabsidu waa shay qiimo badan shay layska dayn karo la heli kara ma ahan waa shay qofka bartay ayada bis ay u dhadhamayso قفكم مركو تغيهي عبادة ربي بقى ودا دميسة وحوال بأيضا كلا قيمة بدن فأسأل الدون يا قفكين وقرطو الله سبحانه وتعالى ونوشيك متقين تئينو كورينا آيات دي هوري آيات كلا وحو قال لك كويري ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وانو كورينا ضدك إيمان كله او أهاليك وربك وكعب صدا او أهاليك ودين تألا كبقما ربي وحا ولدت كاس وان كورينينا وان بدالينينا وحا اي دونيان ودان وان غارسينينا ددك الله كعب صدي اما انت اسكليين يا بشارة الله يا فريه ذي كبرات مالك انت انا بشارة سيوين بل وحان شيغينا طور تلمامات او متقين تلقو يقان متقين تلمامها لقو يقان او الله كسفيه سبحانه وتعالى وحا كمدا انه الله يري ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتابك وحو هنون يا متقين متقين ثم عدوا الباء مايا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون لحسفوا أيو الله لك اسكو حجيه متقين كواسا ليرا waxaa diintu ka warramaysoysan arag bay rumeeyaan salaada allay wanaajiyaan xoolahooda iyo xooggooda iyo cilmigooda iyo caqligooda wax ka bixiyaan waxaa nabiga loo soo dejiyo nabigu adiga lagugu soo dejiyay rumeeyaan oy dhaqan geliyaan oy dadka ugu yeeraan oy ku socdaan waa kitaabka qur-aanka iyo sunnada tafsiirka u ambiyadii hore waxaa loo soo dejiyey ayay rumeeyaan oy xaq u aaminsan yihiin aakhirada dad yaqiinsan oo camal fala oo waxa janno lagu gala ku dadaala weeye ulaa'ika calaa hudan min rabbihim dadkaas ayaa hanuunka dushiisa ku sugan wa ulaa'ika hum almuflixuun dadka liibaanay oo adduunka iyo aakhirada dhibka ka baxayaana waa kuwaas waa leeyahay tilmaamaha lagu yaqaana taasaa ka mid ah tilmaamaha lagu yaqaan waa inay qaraabada xiriiriyaan masaakiinta wanaajiyaan agoonta wanaajiyaan ballanka oofiyaan dhibaatada ku sabraan iyo marka gaalada lala diridayaba waxaa lagu yaqaan inay xoolaha bixiyaan dhib iyo dheefba waayo allah baa yidhi wasaaricuu ilaa maqfiratin min rabbikum
وجنة عرضها السماوات والأرض أعد للمتقين وحاد أددكتان جنب داف حق على كأهالي إيا جنة بل عيدو السجر عرك إيا دولك ومتقين تلو دياري ييه متقين وكوا قاتل كبغا ماي الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وحي كنت المامين دب إيا داف وحجرة وحي هيان ليسن كبخيرين وحي كنت المامين عرضوا إني قريان وهدي الله دب إلهي درك إسكا سامحان إن دين دلو عيارة موجان ومد إني إسكا عفيان إسكا محسنين تا وخير كشغية على واجع عليها tilmaamaha waxaa ku sifoobi kara qofka qur'aanka iyo sunnada ku dhegay oo dhaqan ka dhigtay oo markuu ku dhegayo dhaqan ka dhiganayo waxay ka waramayaan si dhaba u aaminsan oo arintu ka ahayn dadka yeelanayaan dadka sameeyaan samay man amila salihan min dhakarin aw unta wa huwa mu'min shardi way wa huwa mu'min amal hagaagsan oo diinta meel kamida يعني وافقسا مركا آد سمينيسد واللغا مارمان إن إيمان كوجرو إيمان كاللغاد دونا يا فضلغا الله يبوهي وإناد رميسان تهي كريتان كعمل كاسو جرو أو لغود دري إنو حقيه وإناد قرانيسا إلا هناك كوجو لينيو هذا كنت عوتي لكن إسكيال إيو بلد وان كورد دونا يا إيو ماي عرمتو سامعان وفك دونا يا إنو ربي كعب صدو وإن أو سدب أوه جان سما دين تكان هذا مهم دين توان رميسنا وحن طلنا وان سمينا يا مايا قفك الله كعب صدا الله يقول بشارين يا أوكله الله الرحمن كوفد جيسين لا سوق منه الله وحويري يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ذك ربي قوت كعب صدي ومتقين تألل هذا الله الرحمن كحقي الله جمعين وفود لقدرين أيو ولا وناجين أيو وشرف إيا قيمة لأيضو عربت وناكسا وحا إسكاله والله قب بشارين يا متقين والعاقبة للتقوى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين والله يرى سبحانه وتعالى وهدار تاسلو يليا آخرة وإله كد لجينيا ذات كان إسلا سرين كبر فساد حد قدب حمان أنا دونك كنت مين عربت وانا يسوى حاسكالا ددك الله كعب صدي علوية مركي ددك الضلبيان دور سيوالي كدلبان ددوحا أكينا إني علوية دلبان علمي با إسبدان كوا نغالة إسبدان كوا قبيل كيو صرف إليه إسبدان كوا أبا وحبا إسبدان مركابا يستنك كرء تاغان فيني مخلوقة كدام بدنيين كبير كنار تلقو قلو oo qofka laga helana oosan diin iyo iimaan lahayn oo gaalada ku tirfiyana waxa la yiraahdaa al-kibru badarul haqq wa gamtu nas kibirka diinta looga baxayo waa in xaqana la diido muslimiintana la xaqiro oo dadka la liido oo iska sareeyid waarnaa khatara waxa laga doonayo qofka muslimka inuu iska ilaaliyo maxay yeelay arrin aad u halis weey kibirka noocaas qofka rabbi ka cabsada waxa loogu bishaaraynaya ليبان إيه الدنب دار الله بالقرآن ككيري ومن يدعي الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون تذك الله أدعي والرسول كأدعي ووحي ربي أدر إلي فليان الله أقعب صدي وحي ربي كرمان أي كتغان وعدتك الليبان وحكو الله يري يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما ذلك الله يا آيات كيسا يا النبي قبل رمييو صدقين كعب صدق قول صوابت يا حق وافقا كل واقع إلى هذا عمل كينا وناجينا وسمانت إذن وافجينا ودن بقى إذن دافيا وإذن قرقاريا أحد كي الله أدعى والرسول كأدعى ودين تهتن كلها كذا كرن شيئا وعرب كيس يا قلبي كيس إسوافق سنيهين أحد كسوال ليباني ليبان وين عظيم أيوم ليبان الله يب سبحانه وتعالى والليبان على سوكو بكرين أحد كمسلم كوائل أقالا ليبان ترمتا وحاليا إن الله كارا للنقض وجنة لقو قليو وجهنم إيا نار قدنا لقا إلى عليه
تاسي الليبان ليدا وحكرا أو الليبان نقونا يا مجران أحد كمسلم كأوائنه أقادا صاحب نمضى لغو ربحيه وفائدا لغو جاريه وصاحب نمضى ضدك إيمانك لك دحيه فقينت أنت كلا صاحب نمضى لغو خساريه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ذلك صاحبه إسلاء أودن ما أنت قيامة قبل كود قبل كلا عدو أيوه عدو أي إسوين كو الرب قوت كعب صدام ويانا أنت كلا عدو إسوين وحكا بحيان جرين وحي الليان قاريان بانجرين وحي شرف ليين بانجرين وحي قرانيان بان الأرك وخلاص ذاتك متقين تا وحكا الله قب سارين يا عمل كول إن اللي أكتس الله أقبله جعاده إن اللي أقبله صدقاته إن اللي أقبله صون كول يسلاده إن اللي أقبله وهي الله لا يري إنما يتقبل الله من المتقين وهو الله وحكا أقبله أو كرئة كوا عبص ضيالك على الله وربي هو كعب صديق كواسو الله وحكا أقبله قولك الله وحكا أقبله مجرد أحد كيدوني إن وحلقا أقبله وإنه متقين تكبيرا متقين توحكا أقصد من شرف وناك إن لقى صار مرقت إريرك يدبك أدوية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتصب أحد كي ربك كعب صديق إله إريرك مال أو أقبحه إياليه meel uusan maraysanayn baa laga arzuqin waxuusan isku halaynayn baa la siinin meel uusan islayn waxbaa kaaga imaanaya wax uga imaanin xaaladdu saa weeye dadka rabbigood ka cabsada waxaa loogu bishaaraynayaa in umuurta loo fududaynayo in sayi'aadkooda la dhaafayo in ajrigooda la weynaynayo waman yattaqi allaha yajcal lahu min amri yusra axadka rabbigii ka cabsada amarkiisa fudud baa laga dhigin ربي وحو آياتك لكويري ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعلم له أجره سيئاتك إن لو نافيه أجرك إن لو وينينيه سوى البين لو قرقاريه أيها الله شاكر سبحانه وتعالى وحكا الله قد بشارين يا ذاتك ربك عبصدا إلا يذكرينيه كو حاق الدين تا وحنانت ليك يا مكرقودة إيه حاسدين وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وفير صدالك الله هذا دعوة كسبرتان والمعصية كسبرتان والدباتة كسبرتان ودربكين كعبستان الله وحا أي قال الله سخدعه إيا مكري إيا حمان إذين مليقا يا وحبا إذن كدبين وحا ليدين كقادين كرام العرق كيف وحا ليدين كقادين ربي هذا كعبستان أساقا إذن كفلا وإذن وارديين وإذن إلهين وواحد كسا أساقا إذن كدورة الله سبحانه وتعالى ألا أكتي سميل آمنة ياهلية متقين الله باير إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون مقام آمنة جنات إيبيرة إلى الدردريان أي كسبنا ألا أكتي سيا كرامة يشرف كله والله بشارين يا متقين الله وحول إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أي ألا أكتي سقفك إذن كبع إسيق يشرفت بلا واتقيقا مسلمين توتقوا لكو دلال وربك إنك عبد سبحانه وتعالى مقام وما هذه الرنعة وحتقي يا وقفك تقيقا الله وحويري إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مريك مقتدر متقين وحي كسقنانا يعني ويكسقين جنات ديره وبياي مكان فضل الرنعة أي فريسانا يعني وألا أيود له وكون كهانتي وأيودي سأيتي مثل الرأيلة أكتيس أهالي أحد كي دونا ينحريست ألا إنو قاره الله إنو دريق حقا كهنونيه إن جنبك الله ضعفه وإنو ربي كعب صلاة وهي الله ويري يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم أو رب النوع عديتك أسلقى كعب صلاة وإيمان كل حقيقي إنو محريست الله من الله إنو دريق ونأسن كهنونينيو إنو جنبك أضعفيو إنو أقرقاريو بنت إليه الله إنو قارسينيو